waxa weeye sida aad maqasheen waxay yiraahdeen waxa la soo diray madaxweynaha Eritrea waxaanu u nimay inaan ogaano xaalka Soomaaliya sida wax ka bartaan oo yimaadaan in la hadlaan ogaadaan mowqifka ay taaganahay qolaha wakiilada iyo qolaha abad casayda wajigooda waxaanu ka wada hadalnay waxa weeye waa soo dhaweyn bay ahayd waxay doonayeen in ogaadaan qolaha inagu xidhay doorashooyin kale isbedbedela hadba qof yimaado hadba qof lagu eego waxaanu ka wada hadalnay waxa weeye dhibaatooyinka aynu soo maray sida gudoomiyaha uu sheegay dhibaatooyin baynu soo wada maray iyaguse waa kala baxeen Itoobiya way kala Eritrea ilaahay waa kala baxeen laba dawladood bay noqdeen waxaana ku heshiiyey laba Eritrea iyo Itoobiya si wanaagsan walaalnimo ay u kala baxeen khibradda ay leeyihiin waxaynu soo wada maray dagaal inaguna aynu Soomaaliya la dagaalanay iyaguna Itoobiya la dagaalameen haddana markii ay xoroobeen iyagu ay kala baxeen inaguse weli aynu iska laablaabno khibradda way leeyihiin waxaanu ka codsanay inay nagala shaqeeyaan sidii aynu walaalaheen u kala bixi lahayn laba dawladood oo walaalaa oo darisa oo iscaawiyo oo wax istara aan noqono geeska Afrikana ee ka mid baynu isbedelka ka jira waxa weeye qayb baynu ku leenahay haddii qaybteena ka siin wax ka hagaagaya ma jira ciidana indhaha ina kama laalin karto waxayna dawlad calan leh oo ciidan leh oo lacag leh oo dhisan oo shacabkeedii iyo dadkeedii ay midaysan yihiin waa u sheegnay waxa weeye wax goonistaagga Soomaaliland xukuumadda ma xukunto baarlamaanna ma xukumo waxa leh shacabka Soomaaliland shacabka doortay inay madax bannaanidooda cid ku khasbi karta in lagu daro oo la mideeyana ma jirto waxa weeye waa arrin ka go'da shacabka Soomaaliland oo dhanka arrin ka go'da xukuumadda iyo golayaasha ma marka aad iyo aad baan ugu faraxsanayn waxa weeye wasiir khaarijiye ugu horreeyay Soomaaliya yimaada kuwa kalena way ku xigi doonaan rajadeennuna aad iyo aad bay fiican tahay qolada saxaafadda waxaan u soo jeedin lahaa waxa weeye isbedelka baa socda isbedelka ka qayb qaata feejignaada magaca Soomaaliland kor u qaada waxaana TVyada qaarkood ama saxaafaddu inay xamar iyo meelo kale ka soo horeysay Soomaaliland baa la soo horeysiinayaa wararka inta dambana waa lagu daraya caalamka waxa weeye haddaynaan wada shaqayn golayaal iyo xukuumadda waxba qaban karaan saxaafaddu waa meesha ugu xooga badan warka laaliya waxa weeye bal intaa aynu meel u kala dhacno waxa weeye waanu idin kala shaqaynaynaa waa markii noogu horeysay waa indhaynaa taariikhdeena waxaynana waa yaqaaniin marka waxa la waxaan idin la qaban karo waa idin la qabanaynaa waxay qaateen constitution-keennii oo ku qoran tahay constitution-keennii inuu yahay midnimadu wax laga kordhigtamaya ayaan ahayn marka wixii dadku aan haynay ku saabsanaa Soomaaliland iyo goonistaaggeeda way qaateen